السلام عليكم أصحاب الجنال كياسيرا كحنا فدنا كسر دواد الجنال كينا وحان كهلنا ما أنت موضوعين كسبسني هاي شان جورو كم ده جورو كادون كوكل يبقى بدن كان يبي دون تمر كعاد مقشو بيرتان loo yaqaan Eiffel Tower kuna taal caasimada dalka Faransiiska ee Paris waxa loo yaqaanaa magaaladii jacaylka taasoo ay dadka badankooda booqdaan ayagoo ka raadinayo lamaanihi ay nolosha la qaybsan lahaayeen xagga dadka qaarna marka ay meeshaasi booqdaan ay birtaasi tagaan jacayl daran u qaadaan sida gabadhani ku dhacday oo kale gabadhani waxa ay jeclaatay birta loo yaqaano Eiffel Tower taasoo jacayl daran u qaaday halkaasna ku guursatay birtaasi run ahaantii arrintani waa arrin marka aad fiiriso aad u adag inaad rumaysato balse waxa ay ka dhacday wadanka Faransiiska qisada labaad waa qisada xooga iyo dhararka dhamaantiin waxaan ognahay in qofka marka uu dheer yahay xoog badan yahay inuu jecel yahay in nolosha ula qaybsado qof sidiisoo kale ah balse arrintani way ka duwan tahay Sultan Ghassan waa ninka adduunka ugu dheer ninkan waxa uu guursaday 2013 bishii 10aad 28 gabadha lagu magacaabo Murphy Dibol taasoo marka la fiiriyo aad uga gaaban حتى dadka caadiga ah way ka gaaban tahay waana lamaane isku faraxsan tan iyo markaas run ahaantii waa wax aad u adag marka dhinac laga fiiriyo in markastoo xaaskaaga doonto inay kula hadasho ay madaxeega kor u soo qaaso balse waxa ka sii nasiib xun isaga oo markastoo iyada rabo inuu la hadlo kursi dhigto fadhiistana guurkan soo qaadanayna saddexaad waa guurkii teknoolojiyada ama aaladda guurkani waxa uu ka dhacay 2009kii dalka Japan waxa uuna ku dhacay wiilkan Japanese-ka ah kadib markii uu jeclaaday gabadh kartoon ah oo uu teleefankiisa game kula ciyaari jiray wuxuuna go'aansaday inuu guursado markii uu jacayl daran u qaaday asagoona gabadhan hawada ka guursaday bisha malabka gabadhani waxa uu kula qaatay magaalada loo yaqaan Shuam ee ku taala dalka Japan run ahaantii waa adag tahay inaad iska rumaysato arrimahan oo kale balse waa qiso dhab ah oo ka dhacday wadanka Japan 2009kii qisadan afraad in soo qaadan doono waa xaaskii labada saaxiibka dhaxaysay haweeneydani waxay dhashay 2 ilmood haweeneydani markii ay ilmaheeda labaad uur ka lahayd ayay go'aansatay inay guursato ninka lagu magacaabo Peter Ground oo ninkeeda saaxiib dhow la ahaa haasoo jacayl daran u qaaday xaggii ay ninkeeda ka dalban lahayd inuu furo waxay ka codsatay in ninkeeda labaad iyo ninka ay hadda guursatayba ay hal meel ku wada noolaadaan hal gurina wada degaan family wada noqdaan xagga ay labadani saaxiib aad isugu dhow noqdeen markii ay muddo ka soo wareegtay arrintaasi guurka shanaad ee soo qaadanayno waa guurkii tareenka dhimashada ay gabadhu tareenka dhimashada guursatay qisadani waxa ka dhacday New York wadanka Mareykanka kadib markii ay gabadhi jeclaatay tareenka lagu ciyaaro ee loo yaqaan tareenka dhimashada haweeneydani waxa lagu magacaabaa Amy Wolf waxayna meeshaasi booqataa bishii 30 jeer ka badan ayadoo oo ka maarmi karin meeshaasi waad ku mahadsantahay daawashada aad daawatay muuqaalkani fadlan haddii uu muuqaalkani ku cajibiyo like gare una share gare asxaabtaada subscribe-na ka iloobin si wax kasta oo cusub xageena ka yimaada ay ku soo gaaraan